maslax maanta waa wajacsan tahay waxaa ku geynaa isbitaalka ugu weyn Nairobi Al-Heba Medical Service waa isbitaal ay u dhameystireen dhammaan agabyadiisa halkan waa Al-Heba waa arkaysaan meeshaan dadka lagu isbitaalka Al-Heba Medical Service keenay inta waa soo dhaweyntii waa arkaysaa gabadhaas joogto xagana waa meeyay kaararka laga soo goosanay dhaqaatiirtiina gudaha ku jiraan ku soo dhawaada Al-Heba Medical Services makan gudaha galana maanta waa soo booqana Al-Heba Medical Service xaaskeyga xanuunsan isbitaalka inta qeeyo ka koobaya ma noo sheegi kartaa soo dhawaada waa mahadsantiina maanta soo booqateen Atoosh iyo xaaskiisa noo imaaday waana ku faraxsanahay aad iyo aad meesha inaan tuso wax badan oo ka kooban yahay consultation-ka meesha oo dhakhtarka ay fariisato meesha nurse-ka triage kala dhaho meesha nurse-ka lab aan haysanaa waxa haysanaa observation room oo ah meesha oo lagu dabiibayo 6 saacadood iyo ka badan lagu fiiriyaa qofka ilaa uu stable noqdo oo markaas la release gareeya inuu gurigiisa tago markaas soo dhawaada aan meesha oo dhan kala tusay waxa kala duwan ee isbitaalka oo meesha nurse ay fariisato oo dadka miisaanka ku baarto pressure-ka iyo sokorta ku baarto kadib waxa u soconaynaa qolkan oo kalena waa bukaanka chiefka oo aan dadka seexino 6 saacadood iyo ka badan ilaa uu patientka stable noqdo markaas guriga loo fasaxaa waagar kadib waxa galaysaa liimada fudud waa qolka waa arkaysaa waa isbitaalka Al-Heba Medical Service meesha laabka qaybta waa qaybta laabka ama baarista sida aan ku baareyno wax walbo dhacaanka dhiiga haday tahay kiliyaha beerka kaadida cadbuufta saxarada wuxuu dhan waa laga baaraa waa arkaysaa dhakhtarka meesha fadhiya Al-Heba Medical Service waa isbitaalka ugu weyn Nairobi sida arkaysaan qaybo kala duwan uu leeyahay qolkaana waa qolka dhaqaatiirta ay fariistaan ay dadka ku baaraan oo investigation-kooda iyo diagnosis-kooda ku suubiyaan halkaana waa meesha ay fariistaan ilaa oo laga yeero inuu dhakhtarka u galo qofka kuraasta ay ku fadhiisalaayeen markaas xaway Al-Heba Medical Service waa isbitaal weyn oo ku yaala Nairobi Islii Jamka wuxuu ku dhagan yahay meesha caanka ee Lifetime Fitness sida garanaysaan waa isbitaal oo ku yaalaan wax walbo daawooyinkii ayaalo sheybaarkii ama laabkii ayaalo qolalkii laabku leeyahay meel soo dhaweyn uu leeyahay fadhigii uu leeyahay waa arkaysaa farmashigii qolalka qaliimada fudud oo leeyahay xafiisyo kala duwan ku takhasustay qolkeeda waa kan waa gali karnaa waa la soo hadli karnaa qolkeeda waa kan waa u galeynaa insha Allah inaad soo fiirisid insha Allah soo ku soo dhawaada waa arkaysaan isbitaalka Hebe Medical Center oo ah isbitaalka ugu fiican Nairobi ayaa maanta soo booqanaaniya xaaskeyga daawadeeda waa tana xaaji daawadiisana waa tana toon bariyan soo qaadanayna aniga si kadibna natiijada oo soo laabanayna Soomaali jawaan daawa lagu qoraa lacagta maynu u basanahay ma ogi juuni daawa ma meeshaan lacag bas ma jirto jiridaada leeyahay wax walbo kaniini oo wax walbo uroon daawa tayo leh waxa ugu imaanaysa isbitaalka Hebe Medical Service oo ah isbitaal ku soo dhaweynayo Nairobi Islii Jamku ku yaala xaaskaaga haday xanuunsata haduu cunugka xanuunsanya hadaa aad xanuunsata gabdhaha maxaa leeyahay doctoreysada haweenka joogto oo dhan walba ku fiican imaw hada inta ay xarunta ay sida wanaagsan ay ma hasay u qurxanta maslaxa ana yaabe meel oo waxa waaye qabow wala jirada lagu daaweeyo tixsim arkoy gabar waa lagu gudi karaa dadka Soomaalida way keensan karaan ilmahooda way gudan karaan meeshaan wax walba ka saacideynaysa aad u baahanta waad ka helaysaa balanteena waa soo xiriir lambarka shaashada saaran Hebe Medical Service sidaas iyo nabadgelyo Chocolate Ashira waa xarunta ugu weyn ee lagaga furay chocolaatada magaalada Muqdisho
waxaad ka helaysaa jukulaatada noocyadeeda kala duwan cadaan iyo kafey haddii aad lamaanatiin xarunta waa lagugu soo dhaweynayaa laba nooc ayay u kala baxdaa mid kuleel oo qandaca iyo sidoo kale mid qabow ah qudaar ayay wadataa labada kalar ayaad isku darsan kartaa waa xarunta keliya ee aad ka helayso macmacaankii jukulaatada noocii u dambeeyey sidoo kale waxay leedahay qayb kore oo loogu talagal lamaanayaasha xarunta waxa ay ku taalaa siidka gaar ahaan waxa ay u dhaxaysaa hotel weheliya iyo dayax haddaba wixii faahfaahin dheeri ah kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda